السلام عليكم صاحبيال soo dhawaada mar kale maalin kale iyo muuqaal kale muuqaalkan maanta waxaan isla dhisi doonaa website-kan ama landing page-kan hortiina ka muuqda muuqaalkan ma noqon doono kii ugu dambeeyay balse wuxuu noqon doonaa muuqaalkii ugu horeeyay oo noociisa kala oo aan isla dhisayno ama aan isla dhisan gareeyno qaybta hore ee website-yada ee front-end-ga loo yaqaano anagoo adeegsanayna teknoolajiyadaha lagu dhiso balse muuqaalkan maanta waxaan adeegsan doonaa HTML iyo CSS oo kaliya website-ku markaa qaabkan ayuu u muuqdaa xogaa waa design iska basic ah reeyahanteedana waxaan siin lahaa 10kii waxaan siin lahaa 7 adna codeyntaadu waa muhiim commentiga ula wadaag intaad siin lahayd 10kii waa 5 8 kolba intaas leedahay ugu qalma qaybtan sare sida idin muuqato waa navigation-kii qaybtan dhexna waxa weeyaan waa showcase-ki ama banner-ki marka website sida marka muuqaalka aad ka fahmayso marka soo eegto waxa weeyaan website e-commerce ahaana inkastoo aan dhameystirnayn website e-commerce ahaana oo lagu iibiyo hilibka kalluunka marka sida u eegto waveskan animation-ka ama hierarchy animation-ka waxa yani inaad xeeb aad joogto oo kale aad dareemaysaa inkastoo design-ka xogaas ka basic u yahay haddana waa muuqaal ka turjumayo xeebtii iyo hilibka kalluunka waxa marka aad u fiirsato website-kan muuqaalkiisa marka qaybahan dhexe products-ka website-ka lagu dhex iibinayo ayaa ka soo muuqda qaybtan kale sida idin muuqatayna waxa weeyaan information-ka ku saabsan website-kan customer-iska ay haystaan noocyada kalluunka ay hayaan iyo waxyaabo kale ku saabsan sidoo kale qaybtan hooseeyana waxa weeyaan qaybta lagala xiriiri karo ama contact-ga qaybtan ugu hooseysan waxa weeyaan footer-ki marka ayaan waxba sharaxaad idin ku daalin de waad aragtaan qaabka uu muuqdo ee marka waxaan guda galeynaa qaabka aan u dhisi lahayn si aad muuqaalkan ula socoto marka waxaad u baahan tahay inaad aqoon u leedahay HTML iyo CSS boqolkiiba boqol ma aha laakiin boqolkiiba content ka badan casharaan aan ka sameeyay baa jira HTML iyo CSS qaybaha ugu muhiimsan ee aan isticmaali doono ama aan adeegsan doono muuqaalkan dhexdiisa waxaan idin soo dhigi doonaa description-ka hoose sidoo kale waxaan isticmaali doonaa VS Code oo text editor ahaan aan u isticmaali doono iyo Google Chrome oo browser ahaan aan u isticmaali doono browser-ka doonta isticmaali kartaa ugu horreyn folder ayaan samaysan doonaa si aan folder u sameeyo keyboard-ka waxaan taaban doonaa Ctrl Shift iyo N sida keyboard shortcut-ka loo isticmaalo muuqaal aan ka sameeyay waa jira aan ku sharaxay muuqaalkaasina waxaad ka helaysaa description-ka folder-ka waxaan ku soo furi doonaa VS Code waxaan sameyn doonaa right click ayaan siin doonaa kadibna open with VS Code ayaan oran doonaa marka aan soo furo marka ugu horreyn waxaan samaysan doonaa file-ka HTML-ka waxaan u bixin doonaa index.html sidoo kale waxaan samaysan doonaa laba folder oo kala ah img oo aan image-da ku ridan doono ama sawiraanta aan project-ka ku isticmaalayo iyo CSS folder oo aan ku ridan doono faylasha CSS-ka okay dhammaan sawiradii aan isticmaali lahaa waxaan ku soo koobiyay folderkii img-ga dhexdiisa afartaas sawir marka waa png halka labadan kale ay yihiin svg marka inta aan sameeyo html file-ka ayaan ku dhex qori doonaa code-ka bilowga ahaa html-ka si aan u qoro waxaan qori doonaa marka hore calaamatul cajiib ayaan qori doonaa calaamadaas kadibna tab ayaan siin doonaa code-kan markaan qoro kadib ugu horreyn waxaan ka bedeli doonaa title-ka ayaan ka bedeli doonaa magaca website-ka ayaan ku qori doonaa sidoo kale waxaan isku xiri doonaa faylasha html-ka iyo css-ka intaa markaan okay waxyaabahan aan qornay ayaan browser-ka ku soo furi doonaa si aan ugu soo furo right click ayaan siin doonaa kadibna open with live server ayaan isticmaali doonaa kadib waxaan sameyn doonaa navigation bar-ka ayaan sameyn doonaa waxyaabahan oo dhan markaa waxyaabihii aan ku soo aragnay HTML iyo CSS-ki markaa sharaxaad badan kama bixin doono si muuqaalka u soo koobno
Can't take it. We should get away from here. Never back to this. marka waxaan isticmaali doonaa fonta asm iconska isticmaali doonaa si aan u isticmaalo ugu horreyn waxaan u baahanahay cdn linkiga inaan soo qaato cdn linkiga waxaan kasoo qaadan doonaa websitekan hortiina ka muuqda ee cdnjs qaybta fonta asmka ayaan ku dhufan doonaa kadibna linkiga ayaan soo koobiyeyn doonaa weliba qaybta taagiska qaybtan iminka dhexe ee aan cursor-ka ku hayo ayaan soo koobiyeysan doonaa klik ayaan siin doonaa kadibna iconska aan doonayo ayaa linkiyada dhexdooda qori doonaa
I can't take it. We should get away from here. Never back to this. It's all I want to, and I'm so forget about you. 'Cause what you did is not that cool. Yeah.
I can't take it. We should get away from here. Never back to this. It's all I wanted, and also forget about you. 'Cause what you did is not that cool. Yeah.
I can't take it. I wish to get away from here. Never back to this. It's all I wanted, and also forget about you. 'Cause what you did is not that cool.